Heya'adda socdaalka aduunka ayaa sheegtay in 4,470 qof oo tahriibeyaal ahi ay ku dhinteen adduunka oo dhan sanadka 2021, taas oo ka dhigan caalamka tirada dhimashada sanadkan ay ka badan tahay tii la diiwaan geliyay sanadii hore ee 2020 oo ahayd 4,260 ayay tiri hay'addu. Heya'adda waxay sheegtay in ugu yaraan 54 muhaajiriin ay ku dhinteen shil baabuur oo Khamiistii ka dhacay Jeebis. Shilka kaliya ee ugu dhimashada badnaa xuduudka dhulka u dhaxeeya Turkiga iyo Greega ayaa ka mid ah goobaha ay kor ugu kacday dhimashadu sanadkan 2021 marka loo eego sanadihii ka horeeyay ayaa lagu xusay warbaahinta. Barnaamijyo Axmed, Eryal TV, Hargeysa. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee Dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.